dawada qaybta saddexaad wararka wacala dhinaca dunaasiyada caalamka dhan warfadhi TV qaybsan warfadhi group warbaahinta dawashan qabala waan ballaarinay sidoo kale ku soo dhawaada dawashan qiimaha leh sanadkana Ilaahay inoo barakeeyo waxaan kale dawashan qiimaha aad u rajeynayaa inaad ka qayb qaadan doontaan barnaamijyadan sidoo kalena aad soo raaci doontaan qaybtan oo aad runtii hubi doontid inaad la socotid ama aad subscribe tahay si markaas ay wararku aysan ku dhaafin dhawaan waxaan ballaari doonaa wararka iyo markaas arrimaha ku aadan aan ku bilaabo markaan ugu horeysay qaybta saddexaad dabcan waa Janaayo kowdeedii waa 2022 waa dabcan maalintii horeysay sanadka milaadiga ee 2022 ee magaalada Muqdisho ayaa la sheegay in ay inta badan ku soo dhamaadeen xubnihii loo yaqaanay maamul goboleedada oo halkaas la filayo inay dhawaan ay shirka uga furmo wararka ayaa waxay sheegayaan in ay xaaladda ay degan tahay walow la sheegay in xogaa xiisada ay shalay timid kadib markii golaha wasiirada warkoodii qoraalka ahaa ee la soo saaray la sheegay in lagu daray qodob aan golaha aan laga wada hadal warfadhi media ayaa la hadashay qaar kamid ah wasiiradii goobjooga u ahaa kulanka waxayna sheegeen in kulanka aan lagu soo hadal qaadin dhacdada la xidhiidhay khilaafka u dhaxeeya madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo arrin la xidhiidha waxa loogu yeeray markaasi afgembi waxaana la tilmaamay in arrintaasi ay aad u keentay muran kale isla markaa xiisada ay dib u dhalisay hase yeeshee waxay wararku sheegayaan in dhinacyada oo dhan haatan lagu cadaadinayo inay danta dalka uga gudbaan arrimahan taasoo ah danta ugu weyn in doorasho dalka ay ka qabsanto doorashada dalka ka qabsoobay doonta ayaa lagu tilmaamay inay noqon doonto mid markaas cadaalad oo hufnaan leh hadii la ogolaado ayaa la madax banaanida gudiyada iyo sidoo kale hadii ay maamul goboleedada laftoodu ay ogolaadaan in doorashada si wanaagsan loogu tartamo isla markaana aan markaasi laysmiddaroorin maamulka koonfur galbeed ayaa koob iyo 10 xildhibaan oo kale sheegay inay qabanayaan doorashadooda waxayna sheegtay in koonfur galbeed inay sii wadi doonto arrimaha doorashooyinka dhawaana Jubbaland ayaa qabatay xildhibaano iyadoo toddobaadkan oo ahaa maamulkii ugu dambeeyay xildhibaano qabta halkaas oo dhowr xildhibaan lagu doortay halka kala socota wararka wacala dhinaca dunaasiyada senatarka caanka ee isagoo cadaadiska badan saara shirkadaha lacagta leh dalka Mareykanka Senator Bernie Sanders ayaa waxa uu warqad handadaada u diray Warren Buffett oo ah ninka sagaalaad ee adduunka ugu qanisan kaas uu weydiiyay sababta uu xuquuq u sii waayay 450 qof oo ka shaqeeya birta shirkadihiisa hase yeeshee warqadda ayaa waxaa ka soo jawaabay sida u muuqata Mr. Warren Buffett kaasoo sheegay inuusan isaga ahayn qofka lagala xiriirayo balse ay tahay Berkshire Hathaway kaasoo ku tilmaamay inuu isagu yahay qofka maamulka shirkadda wada si kastaba noqotay dhawaan ayaa magaalada Huntington ee West Virginia gobolka West Virginia waxaa ka dhacay mudaharaado waaweyn oo soo qaban qaabiyeen dadka birta ka shaqeeya kuwaasoo dalbanaya in xuquuq dheeraad laga siiyo maadaama birtu ay halis aad weyn ay leedahay dadka birta ka shaqeeya ayaa waxay ka cabanayeen caafimaadka mustaqbalkooda iyo sidoo kale urta birta ku bixi doonta si adraadeedna waxay rabeen in la siiyo xuquuq ka badan inta badan raadinayaan dadka kale ay helayaan dadka kale maadaama ayagu ay caafimaad ahaan ay halis ugu jiraan taasi Joe Biden iyo Putin ugu dambeyntii food ayay istareen wada hadaladoodiina waxaa ka soo baxaya tafaasiil dheeraada ayadoo aan la duubaynin hadalkooda ayaa haddana waxaa la sheegay in wadahadaloodu ay ahaayeen kuwa cakirmay in badanna labada mas'uul ayaa la sheegay in ay aad u cakirmeen wadahadaladoodu kadib markii madaxweynaha dalka Mareykanka Mr. Biden uu sheegay in Mareykanka ay ka go'an tahay inuu cunaqabatayn adag uu ku dhoojiyo dalka Russia iyo Ukraine ay ku duulaan hase yeeshee madaxweynaha dalka ayaa isaguna wuxuu sheegay in ay dawladda dalkaasi ka doonayeen inay ka soo dhalaasho hadaladii iyo shuruudihii goorsii horeysay gudbiyeen Biden waxa uu u sheegay laba arrimood inay kala doortaan inay dagaal qaadaan kadibna la saaro cunaqabatayn aad iyo aad u daran oo ah meeshii ugu horeysay meesha ugu daran ee ugu sareysa oo ay xitaa kamid tahay in Swiftiga lacagta lagu kala gureejisto laga xiro iyo in sidoo kale ay qaataan nabadgelyo isla markaana ay cilaaqaadka Mareykanka ku bedeshaan oo aad loo hagaajiyo balse madaxweynaha dalka Russia Vladimir Putin ayaa dhankiisa waxa uu sheegay haddii cunaqabatayno kale dalkiisa la saaro inay noqon doonto khalad kale Yuri Ushakov oo ah markaasi madaxda sarsare ee amniga qaranka ee dalkaasi ayaa waxa uu sheegay in dalkiisu ay sii wadi doonaan qorshayaashooda haddii iyagana looga soo dhalaali waaytooda wuxuuna sheegay madaxweyne Putin uu u sheegay Biden in ay dawladda dalkaasi ay qaadi doonto wuxuu ugu yeeray tallaabo aad u weyn oo ka mid tahay ayuu yiri in xataa hubka wax si daran wax u gumaada la keeni karo duleedada iyo wuxuu yiri meelaha ay ku dhowdahay xuduudda dalkaasi wuxuu sheekalo sheegay in haddii dawladda dalka Mareykanku ay ka baqayso in ay dhibaatooyin ka dhacaan Ukraine inay isweydiiso sababta ay hubka daran ay xuduudda dalkaasi u soo dhoobeen
dalalka gaashaanbuurta NATO iyo kuwa taageeraya ayuu yiri dalka Ukraine wuxuuna isweydiiyay talaabada uu qaadi lahaa dalka Mareykanku haddii ay taasi dhici lahayd dhanka kalena caawa ayuu wuxuu la hadli doonaa madaxweynaha dalkaasi Ukraine Mr Zelensky oo khadka telefoonka uu kula xiriiri doono siday wararku cadeynaya wararka ayaa sheegaya in madaxweyne Biden uu la hadli doono madaxweynaha dalkaasi Mr Zelensky uu u sheegi doono in dowladda dalka Mareykanku ay garab taagan tahay oo taageersan tahay balse ma jiri doonto wax qorshe ah oo madaxweynaha Biden uu u ballan qaadi doono Vladimir Zelensky oo ku aadan in ay ka barbar dagaalami doonaan ciidanka hadda dagaalka soo qaadaan goordhow war qoraal uu soo saaray xogeeye wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Russia Sergey Lavrov ayuu wuxuu wacd ku maray in aysan qorshahoodii wax iska bedeli doonin ee ahaa inay weerar qaadaan waxa uu sheegay haddii ay diideen reer galbeedku inay soo jawaabaan in qorshihii koobaad lagu socon doono asagoo ku tilmaamay qorshaha koobaad ama plan A in uu yahay ayuu burburinta iyo meel ka saarista xasarada iyo khatarta dalka Russia kasoo jijiiray ee badda madow kasoo muuqata way iska caddahay ayuu yiri inaan ku soo doono qorshaheedii koobaad wuxuu intaas ku daray in dowladda dalkiisu ay ka niyad jabsan tahay wuxuu ugu yeeray in dalalkaas ilaa hadeerta aysan ka soo jawaabin dalabaadkii asagoo la hadlayay wakaaladda wararka RIA Novosti ayuu dhanka kale wuxuu ka digay in wadahadalladu aysan weligood yeelahood noqon karin wax iska sii socdo oo aan dhammaan lahayn laakiin wuxuu ku tilmaamay in awoodda dalalka reer galbeedku ay u leeyihiin inay ka qaadaan culayska ayuu yiri dalkaasi Russia iyo inay joojiyaan wadahadallada iyo cilaaqaadada ay leeyihiin dowladda dalkaasi ay tahay mahuraan iyo mid biyo kama dhibcaana oo ay mar walba ka go'an tahay inay subiyaan hagaag dabashada qiimaha leh qodobada warka waxaa dhinaca diblomaasiyadda caalamka dhan ee qodobka dabashada qiimaha leh aan arrinta ku soo afgood doono waa Iran dalka Iran waxa ay dirtay 3 dayax gacmeed sida ay sheegayso iyadoo lagu tilmaamay in dayax gacmeedadaasi aysan weli gaadhin meesha orbitka sare walow la sheegay inay dhaafeen xajmiga heerka loo yaqaano heerka labaad iyo kan koobaad heerka koobaad iyo kan labaad ee dhinaca dayax gacmeedda keeni kara xog waxaa laga diray xarunta dayax gacmeedada ee loo yaqaano Simoqor satellite iyadoo Axmed Xuseen afayeenka u hadlay waaxda dhinaca space-ka u qaabilsan dalkaasi hawada sare u qaabilsan Space Affairs Iran Defense Minister waaxda gaashaandhigga dalkaasi inay tahay tallaabo uu ku tilmaamay guul iyo waliba mid ballaaran wuxuu sheegay in inkastoo dacayad lagu furay haddana in gantaaladan ay direen ama gantaalkan ugu dambeeyay noociisa dambe ay u soconayo ayuu yiri 7350 halkii ilbriqsiba intaas soconaya ayuu sheegay wakaalada wararka Faris News Agency ayuu intaas u sheegay wuxuuna sheegay in dowladda dalka Iran isku diyaarinayso wax kasta oo karaankeeda ah oo ay ku dabooleyso isla markaana kor ugu qaadayso baahideeda ay u qabto inay meel walba horumar ka samayso arrinta waxay imaanaysaa iyadoo dhanka kalena uu diyaar garow iyo isku birtumasho xoogan ay ka jirto dhinaca Israa'iil ayaa cartamaysa isla markaana waxay leedahay ma sugi karno wadahadallada daba dheeraaday ee Vienna iyadoo Mareykanku uu dhawaan sheegay inuu ka niyad jabsan yahay in wadahadalladaas aysan meel laba u socon oo dowladda dalkaasi ay waqti iibsanayso dad badan ayaa ku eedeynaya in Iran ay doonayso inay waqti la yacdo kadibna ay sii wadato qorshayaasheeda adag iyo kuwa waaweyn hagaag dabashada qiimaha leh qaybta afraad ee wararka wacala dhinaca diblomaasiyadda waxaad kala socon doontaan dabashada qiimaha leh linkiga dhamaadka halkan ayaad ku dhufan doontaa isla markaana si automatic ayaad u aadi doontaa deebaydnimo